ka badan 20 sano oo muran keenay dil oo ka taagnaa dhul ku yaala goobta lagu magacaabo buurta dab la taagay oo ka tirsan degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah murankaasi loo soo gabagabeeyay. muranka ayaa u dhaxeeyay qaar ka mid ah ciidamada qaranka iyo waliba dad shacab ah oo halkaasi degan. isla goobta la isku haystay oo ay warbaahinta kula hadleen waxaa ka hadlay labada suldaan ee kala ah aadan cawil cilmi iyo xasan maxamed axmed waxaanay sheegeen wixii ay ku heshiyeen ciidamada qaranka. dhulka kan oo ahaa dhul la isku hayay muddo dheer ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinacayga taagan qaybo ka mid ah iyo anagoo shicibka halkan degana ayaa isku dhacay. kadib halkan waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh oo dil baa ka dhacay. waa lagu kala yaacay dhulkana dhul aad u fara badan buu ahaa oo shicibay ciidan isku haysto. على كل حال مدرر كذب وحنو مانتو أي تاريخ تهاي لبيه لباتك مسلحية لباتنكي بش السداد أنه هشيس مورا كجادني دبعتدي هلك كتير كذا عادي سايسكي ونكسو أفكويني وهكرون عادين يادولك كان إنه لا شرعي ولنا عنو سيننا شرعي جيستان أنا قلنا عيجا كلنا عنو شرعي جيستان له مركب حويان مانتو وحن سوق جبين موران دير وحنا نوجب باقينا عد كستوي قصيصه in hagardaamadii horena gaadhay aanay dib noo gaadhin ciidanka qarankana waxaanu leenahay soo dega dhulka aynu maanta ku heshiinay. waxaan magacayga Suldaan Xasan Maxamed Axmed waxaan ahay suldaan xaafadda degan waxaan dadkan labada dhinacba suldaan baan u ahay muddada arrintu taagneed intaa waan eegay waxaan isla ilaahay waxa hore dhacay ma wax dambeeyana dhicin in badan baa dhibtaasi taagneed dadkuna dhigtu taagneed dawladdii arrintaa dhigtu taagneedna ka naso qolooyinkii doonayeen inay ka dhaxqaadaan oo ka heshiiyay iska taga. dhankooga hadalka salaadiinta waxaa iyaguna ku taageeray gaashaale Cabdirasaaq Xasan iyo waliba saddex arigle Maxamed Tube waxaana yiraahdeen waxaan mar labaad salaamayaa dadka xaafadan degan ee ugu horeeyo Suldaan Aadan iyo Suldaan Xasan oo labaduba si qurux badan uga shaqeeyay hawshii halkan ka taagneyd iyadoo ciidanka qaranku ومر والبديار يهاي إنه دت كيسة يدل كيسة بالدفاع سلطانكو ما دام مركو أجاي الدولة دي هو صاحبك قبل ويدي عد الله حل سريع هوشة وحبك قبل ويدي وحن مر بعد سلطانكو كوا أمانة سود هوشة نوجشقي سود عيدا كقرن كوسور دوي سود عيدا كقرن كوسور دوي سود هوشي نبتي هالكن كتاعنا دو دمبي وحنا نلاقينه مهنا قناة سلادين تامان تحريرها يجوا كتير كيجي أنت سوتشي تمي ندح مرجي ولي بعدنا كلنا ضبك سوكا ورنسي ما أنت دميسي الحمد لله رب العالمين. باتري كورسار محمود تلفيشة كسهن هرجيسة. baxsane group of companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. baxsane group ugu kaalay dhamaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kasto mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. sidoo kale baxsane group of companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysaa dhamaanba qalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. qaybta real estate-ka ee baxsane group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. ku xidhnow baxsane group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda ballanteenu waa baxsane group of companies.